iyadoo lagu jira bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa qaar kamid ah dhalinyarada magaalada Buuhoodle ayaa wali waxay wadaan gurmad balan oo lagu gurmanayo dadku ay ka buriyeen guryahooda magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar qaar kamid ah dhalinyarada Buuhoodle oo la hadlay telefishinka caalamiga Kalson TV ayaa ganacsatada u diray baq ku aadan in dadkaasi gurmad loo fidiyo waxaan maanta ka bilownay magaalada gurmadka Qardho lagu gurmanayo sidoo kale waxaan anagoo kaashanayna culimadii deegaanka maamulkii gobolka iyo degmada waxaanu bulshada reer Buuhoodle ugu baaqanaa inay ka qayb qaataan gurmadka walaalahooda Qardho maadaama lagu jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan oo qofku ajarka uu la baxo uu si laba jibaarmayo ama saddex jibaarmayo anagoo aan dhalinyarada Buuhoodle oo isu xilqaameynay walaalahooda Qardho garab siiyaan waxaan ka codsanaynaa inaad gacan iyo garab nagu siisaan shaqada aan hayno ee tabarucaadka ah oo ay kamid yihiin waxaan ku hadal dhalinyarada gobolka Cayn khaasatan magaalada waxaan ku rabaa Buuhoodle ururada dhalinyarada ee ka jira waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer Buuhoodle haday tahay heer gobol culimada diin iyo waxaan ku rabaa masaajida aymadooda dadweynaha guud in hawshaas waxaan ku raahdaa ay ku garab istaagaan dhalinyaradaas isqaantay marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradaas iyo waajibaadkaas culus ay naga qaadeen marka xigta bulshada Buuhoodle khaasatan ganacsatada iyo kambaniyada iyo shirkadaha waxaan dadka walaalaheena waxa lagu gurmanayaa insha Allah laga soo wada qayb qaato bulshada reer Buuhoodle waxay ku fiican yihiin Soomaalida kale ka fiican yihiin waxa jira gurmadka dadka tabaalaysan ama dadka caqabadaadku la kulmaan intaas oo baan faray bulshada reer Buuhoodle hawshuna maalin iyo habeen way socotaa mar hadday xaalad degdeg oo emergency timina waxa loo baahan yahay si dhaqso oo aan ka badnaan 3-4 bari in hawshaas lagu soo Xuseen Xasan Cadde telefishinka caalamiga Kalson TV